bulshada degan deegaamada Habaasweyn, Xaabaale iyo Qalax ee gobolkaasi Hawd oo ah deegaamada uu ka taagan yahay muranka dhuleed iyo maamul ee la xiriira xadka iyo soodimaha u dhaxeeya gobolka Hawd iyo caasimadda Hargeysa ayaa maanta la hadlay warbaahinta iyagoo ka biyo diiday isla markaasina waxba kama tiraan ka dhigay go'aankii ay maalintii shalay ay soo saareen odayaashii cuqaasha reer Hargeysa ee gudbiyeen wasaaradda arrimaha gudaha. Bulshada deegaamadaasi ayaa sheegay inay sharci ahaan dhul ahaan iyo maamul ahaanba ay ka tirsan yihiin gobolkaasi Hawd, waxaana intaasi ku dareen in maamulkoodu yahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Beligubadle. Odayaasha iyo cidii kale ee go'aanadaasi aan khusaynin haddii aan laga noqonin arrintaasina ay keenayso muran iyo buuq ballaaran oo keeni karta isku dhac iyo xaalad nabadgelyo darro oo ka dhex dhacda bulshada deegaamadaasi wada degan. wixii loo xadeeyo xaq u lahaa ma xukumo wax waliba waxay leeyihiin maalin la xadeeyo. annagu Soomaaliland baa gobolku la xadiyay xad annaga imika naloo gooyo gooniyada kama lihi Soomaaliland baa la mid Soomaaliland marka la wada xadeeyo la mid baanu halkaanu doonayna Hargeysa dawladdu laakiin gobolkaanu kala goynayna oo wixii u soo baxay waliba waraaqda lagu siiyo sharciga loo siiyo oo wada xukumin intii kalena imikaanu kala goynayna ma yeelayno waxaanu yeelayna ma waanu diidnay waxaan qaranka Soomaaliland ku soo bixin xuduunta gobolada degmada Hayn Beligubadle ma qaadan karo mana yeelayno ma qaadan karayno ma yeelayno ina kaayna waxa la afaroday iyo afar aqalo dhig loo doorsiyo beelada inta nabadda ma matalaan gobolka Hawd gobolku wuxuu ku go'ayaa oo halka hadla doonaysa tagaya marka jeceshahay marka kala xadaynta gobolada qaranka Soomaaliland ku soo baxaan la mid baan inta ka horeysa afaroday lama matalaan namana goyn karaan wasaaradna ka yeelimayna qaranka ka yeelimayno xukuumaddu ma ay ku mashquulsho xudunta kala goynta gobolka Hawd xukuumaddu waa taa calanka iyo nabadaynta aan ugu hoos joogno maxaa loogu mashquuli waayay dadka abaaraysan ee hoos loogu eegi waayay ee loo tixgelin waayay hayaanka ee baabuurada lagu caawinayay maxaa iyaga afkooda iyo deeqooda loo eegi waa lagu caawinay inta gobolka iyo kalxinta xudud lagu xudurayo waxaan qaranka timirta Soomaaliland iyo madaxweynaha iyo kaahin baleeyahay yaan lagu mashquulin gobol xintii maanta abaara la jooga boqolkiiba 90 toban baa ka magaala 190 kale waxa ku maqan yihiin waa nafku dir 190 ka xukuumadda hoos waagto meel kasta ay joogtaba inay xaq darro tahay iyadoo kala xadaynta gobolada iyo degmooyinka la soo saaray mooyana inaanay wax aliyaalo wax ka soconaya jirin gobolka Hawd waa la jaraya tuulayaasha laga jarayo iyo ilaa Qalax inkastoo ay tahay anagu aan waxay gudoomiyay tuulada Habaasweyn suurtagal ma noqonayso mana ogolin gobolka Hawd baanu hadaan run sheegayno ina kaayin waanu sheegayno wasiirka arrimaha gudaha waxaan leenahay xaq darrada ka dalka xaq darrada ku haysaa run ilaahay baa jecel waxaan leenahay ma suurtagelayso waxaan ka soconayn halla iman dalku kala xadayn buu leeyahay kala xadayntii sharciyada ahayd ee caadiga ahayd munaasabka marka soo saarto Hawd wuxuu yahayna waa laga dhigi Hargeysa waxay tahayna waa laga dhigi asaymaka ma suurtagelayso waxaan u sheegayaa madaxweynaha qaranka dhammaan wasiirka arrimaha gudaha nimanka leh arab baanunay oo waxaanu ka talinaa sharciyada dalka waxa weeye niman xad gudbay iyadoo oo dalku uu ka baxay axdi qarameed loo gudbay hab dastuuriya iyo kala dambeyn madaxweynuhu afkiisa ku dhig sharci dejintu waxay soo saarto ma sharciya nimankaasi waxaan sharci ahayn oo maroorsiya oo hab qabiila oo dhul dadleeyay ay ku dhacayaan ayay wataan gobolkana adduunyada lama arag nin yiraahdo gobolkaygi baan bireeyay waa dhuuni qaate dhadhama raac oo hunguri qaaday adeerow magihiina ku ekaada adeerow shaqooyinka caaqilnimadiina ku ekaada dalku sharciya waa mid buu leeyahay dhulka dad baa iska leh sharciga idinku gobolkan ku rartaana awood ma lihidin oo dalka sharci dejin baa ka jirta iyo kala sarreyn madaxweynahana waxaan u sheegayaa madaxweyne Muuse waxa tidhi qabiilkii waa laga baxay salaadiin waxba ka aqbali maayo caaqil hadalkiisa daa tani waa tii oo kale gobolkaasi wuxuu ku guurayaa sifo sharciya oo golaha sharci dejintu ay ka soo taliyeen kala xadaynta gobolada
iyo degmooyinka qaranka markuu xeerka baarlamaanku ansixiyo ayuu gobolkaasi guuri karaa ee la raro gobolka Gabiley ee la raro gobolka Saaxil ee goboladu la siman yahay loo rarayo midna waxaan leeyahay maxamed kaahinow adeero meeshan waxay leedahay dastuurku waa kaad kursiga ku fadhido kolba afar arabaha u yeedhin oo ama xilal qaata haya ama cad qaatayaala sharciga dalka u hoggaansan maayarkayaga aanu dooranay ee codka lagu doortay ee aqlabiyadda la siiyey madaxweynaha wada hadlaan waayo cod buu ku yimid annaguna matalaa cid kaloo u caaga juglayn kartaa iyo cid u hanjabi kartaa midna ma jiro adiga madaxweynaha ku magacaabay anigu arrinta gobolka waxa la yiri waxay odayaal arab matiiri waan matalaa oo matalahayn ayaa yiri waanu raraynaa wax ka jira ma jiraan gobolka Hawd marka la xadeeyo gobolada ee samawanaag waxa la leeyahay samawanaag balgubadlo noqoto faraweyne balgubadlo noqdo la xadeeyo wixii la rarayo waa la rari karaa mid walba halkii loo garto ayaa la geyn karaa inta ka horeysa ee xasan aadanku aanu ogolayn balgubadle wax ka soconaya ma jiraan sida ay tahay u taala ay u oolayaan ayaasha isu soo duubabka u soo qaatay ummadda dagaalkeeda iyo beelaha culaysiintooda waxaan u sheegayaa in aanay matali karin arab dhul aanay maanta arab iyo ku murmi karin cid kale oo deegaankii madaxweynaha iyo inta la halmaashan waxaan u sheegayaa inaan la horseedin dagaal beeleed ayaan u sheegayaa halkan waxa la yiraahdaa qarax deegaan weeye dadka deegaan baan ka mid ahay waxa weeye markay sidaa tahay hadalkiisa ka soo yeedhay nimanka cuqaasha waxay noo horsaaday oo ay minka noo gelisay dagaal habeenkii xalay hadda waxaan ku seexanay dagaal waxa weeye dalkeenu maanta dagaal ma baahna dastuur iyo sharci buu leeyahay dalka waa la kala yaalaa Hargeysa wala wada degayay degmada Balgubadle ama gobolka Balgubadle waa gobol waxa ka soo jeeda cid gobol kastana cid baa ka soo jeeda waxa weeyaan faqradana lagu sameeyay maanta waa dhowr taabasho waxaanan tusanahay inaan waajibkayga ka qaadano dadkii dhulkan sheeganayay ee lahaabaan waxa weeyaan cuqaasha shalay hadashay waxay ka talin jireen meydku dee markuu dhintaabay ka talin jireen wixii dhinta iyagu dawladdee ma ahayn waxa ay ku hadleen beenbay gobolkan Hawd waxa wada degan beelo fara badan oo de gobol u yahay kuwaas unbaa ka talin kara oo ka hadli kara waxaan sheegayaa oo madaxweynaha u sheegayaa in cuqaasha nimanka ay arab baan xukunaa oo aanu maamulnaa inaanay waxba ka jirin oo ay yihiin odayaal dee wax loo dhiibay laguna soo ururiyey arabna aan matali karin sharcina dee aanay ahayn oo sharciga dee dawla haysta mid waa gobolka midna waxa weeyaan cuqaasha mid waa gobolku goboladu la mid yahay marka gobolada loo soo baxay ee la xadeynayo iyo kana la xadeynaya iyo sharcigu yimaado sharciisintu midna waxa weeyaan cuqaashu meedu bay ka talisaa iyo wax la dilay iyo wax xabad laabta loogu dhufanayo ee ka talisaa marka leeyahay nabada yar laabta xabadda kaga dhufta laba beelood baa la iska horgeynaya taasina ma dhacayso marka mudane oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi nimanka cuqaasha ee dadka isku dilaya ee shilimada ku hadlaya wax ka qabo gudoomiye deegaanka Darfaale deegaanka laga hadlayaana waa Darfaale waana gobolka Hawd mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay de annaka xildhibaanana xukuma degmaan xukunta gobol baan xukuma gobolka Hawdna waxa wada degan 3 qabiil awal baa degan oo arab baa degan oo ayuub baa degan
inay odayaashooda ay ka wada hadlaan amba cuqaashooda ka wada hadlaan baa meesha taala inay qola ka hadashaa waa xaaraan waana shay aan meesha qaban waxaan leeyahay mudane madaxweyne dee dastuur iyo sharci baa loo guuray gobolkaan rarayaa markuu leeyahay gobollada Soomaaliland buu lamid haddii la raro gobollada Soomaaliland isna waa la raray sharci dejin wali sharci dejinta raray odayaasha cuqaasha iska hadlay waxaan u arkaa niman iska hadlay niman cid iska horgeynaya inama yar xabada laabta kaga dhufo yuu yiri dee isaga ku dhufan doono uu iman doono dhulka iyaga leh sharci baa ka baxay golo deegaan buu leeyahay maayir baanu leenahay degmaanu leenahay gobol baanu leenahay waa lagu dilayaa waa laga qaadayaa waa nooca wax soconaya ma sharciga hoos loo eego arabo qurina malatan waxa wada leh 3 beelood baa wada degan awal in ayub arab haddii ay jirto cuqaal ka wada hadlaysa amba odayaal ka wada hadlayna 3 beelood u dhamaadana ka hadlaan weey ka hadlay beel qura oo tiri saasaan yeelina gobolkaan wax ka jarayna waar gobolkeena wuxuu soo kordhiyay baan eegin inay wax ka jaraan damaanaan eegin aqli xumaana nu aragnay sharci dejintii dalkana ma namana matalaan waxaan leeyahay mudane madaxweyne arrinka u fiirso sharciga meel laga dhacaya dastuurka meel laga dhacaya kay Soomaaliland ku dhaqantaa meel laga dhacaya kursigaas ku fadhida meel laga dhacaya xusbigaaga meel laga dhacaya waa rag u jeedale ragaa u jeedadale arrinkooda ha raacin ina kaahina dee wuxuu u jeedo wasiirku ilaa aanig ma nafahmin iyo inuu arabu dee isaga la yiri dhakada ka fuushano in la yiri xusbiga baabi cid loo soo diray ninka wali ma garanayno waxaanu leenahay wasiir mudane wasiir iska ilaali wixii aan sharci ahayn wixii sharciina uu naqabtaa gobolladaan la qabnaa in la guuraan la qabnaa haddii gobollada la rarayo waanu aqbalaynaa sharci dejintu waxay soo saarto waanu aqbalaynaa waxaana laakiin gobollada la qabin ma yeelin taanaka kana xukumaabo waa maayir ninka yiri tan ayaa raac tan raac geel raac jira tan raac ma tan magaceed baan korsaday de kay xukumun bay xukumi awalay xukumi jiridii hadaa si yaraha hadlana taanaka caasimadda marooje xildhibaan loogu soo bixin 9 tan baaban laan xildhibaan kuwiina tuuraaniga igu soo biir taasina waa mid adag de ee bal laga fiirsado